mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ay weheliyaan cuqaasha waxgaradka iyo duqeyda gobolka ayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ku hambalyeeyay go'aankii geesinimada lahaa ee ciidamada qaranka Soomaaliland ee kala duwan uu ku siiyay darajada ciidanimo muddo laga joogo 12 sano. dhinaca kalena maamulka gobolka Togdheer cuqaash iyo waxgaradkani waxay hambalyeeta la mid u dureen saraakiishii ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ee uu madaxweynuhu siiyay darajada ciidanimo. shirkan oo horkacayo kusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Baxle ayaa waxa ay sheegeen in go'aankaasi uu madaxweynaha Soomaaliland ciidamada kala duwan ee qarankan uu ku siiyay darajada ciidanimo ay ahayd mid ay ka naawilayeen shacabku isla markaana ay ka sugayeen maalintii asaaska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ugu horeysay inuu ka gudubno ciidan beeleedyo in shalay xuska ay ka bilaabanto oo loo asteeyo darajo bixinta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii la oran karo waa caqabada ugu muhiimsan ee ka gudubtay Jamhuuriyadda shalay waana guulaha ugu taariikhisan ee taariikhda geli doonta ee ay xukuumadda maanta taala xukuumadda maanta jirta ay ku geli doonto diiwaanka lagu ururiyo dhacdooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee noqon doona taariikhiga tablaha gaarsiiya taasi waa taas waanu hambalyeynayna waanaanu ku faraxnay garoomada loo soo baxay waxaanu isugu nimi walka warbaahintu joogto ayaanu isugu nimi oo reer oo dhameystay sacab bay garaacayeen nayaayir iyo wanaagsan bay ku tumayeen sacabka hambalyeynaya arintaasi waxa weeyaan dareen weyn bay shacabka reer Soomaaliland ay u samaysay talajada ciidamada ee 19 guuladii sanadkii ciidamada la asaasay shalayto lagu bixiyay goob fagaara oo madaxweynuhu iyo xukuumaddiisu ay guusha ay gaareen baan ku taageeraynaa kuna hambaliyo madaxweyne waxaanu kula leeyahay hambaliyo dawladda xilka saaray ciidamada xilka saaray shacabka xilka saaray odayaasha xilka saaray waayo nabadgelyadu waa noloshii geesta kalena kusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Baxle waxa uu fariin adag u diray ganacsatada qurba joogta iyo dadweynaha kale ee gobolka Togdheer iyo guud ahaanba Soomaaliland inay soo taakuleeyaan qoysastan yara oo habeenkii xalay ahaa gudaha magaalada Burco ay guryahoodii kaga shufbeeleen isagoona ka diiriyay xaaladda debdemislaan ee ka jirta guud ahaanba gobolka Togdheer dadkii dayarta ahaa ee ay magaalada Burco xalay kaga gubteen labada guri saddexda guri ee laba reer isku reer iyo wada deganaa aylad fara badan oo dayarina ay ku noolayd oo caruur yar u badan oo ay naga xumaayeen dabdabsidii madaarka iyo kii shirkadan private-ka ah ee Dahabshiilba waxaanu xusid mudan aniga taliyaha qaybta booliisku inankii booyada watay dhalinyarada ahaa ee in Cali Biid ee aanu ku nidhi gal dabku holcaya gubta tuumbadaadii gaariga weey Cabdi Faarax Cabdilaahi telefishinka qaranka Soomaaliland Burco.